kulanti wacan oo wanaagsan idulahantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka maawalada dhallaanka oo aad ka daawataan marka soo booqataan janalkaanu ku leenahay youtube ee dhallaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan aan idinku haynana carruurey waxay qaybteedii tobnaad tahay taxanaha sheekooyinka boqoradda ayaan iyo qumayada boqoradda iyo boqortooyadaba dagaalka kula jirtay heelaha sidaynu sheekooyinkoodii horeba ku soo baranay waxaa dhex marayay muddooyinka u dambeeyey dagaal dheer oo salka ku haya lahaanshiyaha taajka dahabka ee boqoradda taasoo qumayadu dagaal weyn ugu jirto siday u hantiyi lahayd waxay aaminsan tahay haddii taajku madaxeeda soo galo in markay helayso awooday kula wareegto maamulka iyo maaraynta boqortooyada iyo ummadda ku noolba siyaabo fara badan ayay xeeladeeda isugu dayday in mar un ay ugu suuro gasho heela balse tan hadda waa tii ugu dambaysay suma ay qooshatay ayay doonaysaa inay isugu eekaysiiso toddobada muruqmaal ee boqoradda la saaxiibada ah haddii ay taas u hirgasho way taajka hantidana waxay doonaysaa inay qasriga boqortooyada iyadu boqorad ka noqoto dhanka kalena boqoradda iyo toddobada muruqmaal ee la saaxiibada ah waxay si nabad qaba uga toosan qasriga boqortooyada way ku waabaraysteen waxay dheelayaan ciyaarta maadayska iyo halxidhaalaha ay jecel yihiin waxay isku gudbiyaan mahmaah iyo odhahyo dhaadheer oo ay tahay kan u dambeeya inuu kan u horreeyay si saxa u gaadhsiiyo koodii ku guulaysta ayaa kolba xagga hore soo mara oo odhahya maamaha cusub hindisa ilaa midka u horreeya ka u dambeeya u gudbinaya sax inta badanna suuragal ma noqoto kan u horreeyey ayaa kii ugu xigay u gudbiyey odhahda dheer ee odhanaysa gagalayaasha gaagaabani mana la garaadba balse midba markuu midusii gudbinayay ayuu wax ka tegayey kii ugu dambeeyeyna waxa gaadhay oo keliya xarfo kokooban oo ga u badan waxna kama fahmin waxa loo jeedo kadibna xagga hore intuu yimi ayaa wixii loo sheegay uu ku dhawaaqay kadibna way ku qosleen isna dhanka dambe ayaa u tegay siduu mar kale hadhxiraalo kale u helo wuxuu maskaxdiisa ka keenay ayuu boqoradda u gudbiyey boqoradduna waxay usii gudbisay kuwa kale waxa ahayd ciyaar iyo maadays ay aad boqoradda iyo toddobada saaxiib ee muruqmaal ay jecel yihiin way had iyo jeer ku madadaashaan balse intii madadaaladan iyo maawiladan ay ku jireen dhanka kalena godka ay degan yihiin qumayada hele iyo madaxdiin waxaa ka socda shirqool weyn oo ay qumayadu isugu diyaarinayso sidii taajka boqoradda ula wareegi lahayd waxay la dardaarmaysaa madaxdiin waxay ku tidhi waxaan cabbayaa suntan kadibna waxaa noqonaya mid ka mida toddobada muruqmaal sidaas ayayna iigu suurageli kartaa inaan ku soo xado taajka boqoradda oo keliya balse suntan waxaan ka dhex bixi karaa oo keliya inta dayaxa 15aadka jiro markii dayaxu soo baxo ee aad aragto inuu meel dhexe taagan yahay oo ay cadda 15 tahay xadhigan halka sare kuu suray soo jiid si ay iga jabto suntu oon qofkayga caadi ha ugu soo laabto haddii aad sidaas samayn weydo tan iyo inta laga gaadhayo 15aadka bisha dambe ee dayaxu mar kale soo wada baxayo waxaan haanayaa mid ka mida toddobada muruqmaal oo sidayda hore marnaba ku soo noqon maayo hadha yalsan fariinta aan ku leeyahay waa inaad samaysaa ayay kula ballantay adeegaheeda madaxdiin waxa uu ku yidhi ha ka warwarin inkastoo sidaas baad ku qurux badan tahay waxay ku tidhi waxa ilow oo waxaan kuu diray waa inaad qabataa tani ciyaar maaha kadibna suntii ayay si tartiiba u liqday 2 ama 3 jeer markii ay kabatayna waxay si lama filaana heel isugu beddeshay qof gaaban oo leeg toddobada muruqmaal ee boqoraddu la saaxiibada tahay waxaa ka argagaxay oo yaabay adeegaheeda madaxdiin oo ku yidhi ma rumaysan karo waxaan arkayo sidee ayay ku dhacday waxay ku tidhi waa sidaan doonayey ha ilaabin wixii aan kugula ballamay markay noqoto cadda 15 ee dayaxu soo baxo waa in xadhigga xagga sare sudan ee mucjisada ah aad jidda saan qofnimadayda hore ugu soo laabto hela ayaa dhaqaajisay si ay shirqoolkeeda u soo fuliso iyadoo oo cidina aysan arkayn duurka iyo kaymaha ayay isdhex raacisay madaxdiinna wuxuu ku haminayaa inuu fuliyo waxay hela kula balantay oo ha boqoradu adeego u yahay duurka markii ay soo socotay ayay cid shimbiraha iyo wax kastoo korkeeda duula ka baqatay waxay tidhi waa maxay waxaan aan iska dhigay waa maxay nolosha tani sidee ayay ugu nool yihiin toddobada muruqmaal ee gaagaabani wax kasta waa ka cabsanaya hare ayay u sii socotay maadaama ay qof yar noqotayna carruuray cidina maysan arkaynin iyadoo aan laga warqabin ayay qasriga boqortooyada soo gashay
hareba way u taqaanay halka uu yaalla taajka boqoraduye markiiba toos ayay ugu hagaagtay waxa keliya ay doonaysana wuxuu ahaa taajka markay indhaheedu qabteen ay afka kala qaatay farxad darteed waa wixii ay nolosheedu dhan ku hamiyeysay ayay u muuqataa inay maanta u ahaatay iyadoo qoslaysa oo faraxsan isla hadlaysa ayay taajka madaxa sudhatay markay saa u sudhatayna waxay noqotay lama arkaan hadda meel kastoo ay marayso cidina ma arki karto shirqoolkeediina qaybtii ugu horreysay ayaaba u meel maray mar kale ayay iska hadashay oo ay tidhi hadda laga bilaabo waxaan gaadhayaa riyadaydii hare ayay isaga soo socotay kadibna kadinka ayay ka soo baxday waxay soo dhex martay isla daariddii ay ku ciyaarayeen boqoradda ayaan iyo 7 muruqmaal ee la saaxiibada tahay dhexdooda ayay martay balse maadaama taajku madaxa ugu jiro cidina arki mayso boqoradda iyo 7 muruqmaal ee hormaraysa mid quri ma dareemin muddo ayay hela iska sii socotay meel dhexe markay marayso ayaa si lama filaana waxaa taajka ugala hadhay geed aysan ka warqabin markii cabbaar socotay ayaa mar keliya waxa jabay ayay mar keliya la arkay markii taajku ka hadhay ayay mar keliya muuqatay oo waxa aragtay boqoraddii iyo 7 muruqmaal waxay tidhi waayo qofkan gaaban ee sii socdaa way u yeedhay istaag ayay ku tidhi balse hare ayay isaga sii socotay waxay dhaheen waa qof annaga noo eeg oo haddana aynan hara u arag isma taagin balse mar keliya ayay dareentay hela in taajkii madaxeeda ku jiray uusan hadda madaxa u saarnayn sababta loo arkayna ay taa tahay boqoradda ayaa sidoo kale aragtay in taajkeedii saaran yahay geed way ku soo oroday dhanka kalena heela ayaa soo oroday maadaama ay fududayd ahaydna qof gaaban geedka ayay markiiba si degdega u kortay ka hor intaysan boqoraddu soo gaadhin oo aysan qabsanin taajka ay doonayso ayay hela uga soo horumartay oo waxay ka daftay boqoradda markay madaxeeda saartay ee taajka xidhatayna waxay markiiba si lama filaana carruuray u noqotay midaan la arki karayn waan arrinkeeda waxba laga qaban karin boqoradda ayaa ka warwartay way u yeedhay waxay ku tidhi taajkan adigu ma lihid waxay u soo yaacay 7 muruqmaal ay la saaxiibada tahay si ay u caawiyaan balse cidina waxba kama qaban karaynin helana xataa lamaba arkaynin in wax laga qabtay iska dhaafe shirqoolkeeda ayaa qaybtii hore u meel martay boqoradduna aad ayay uga murugootay shirqoolka ay u dhigtay qumayada hela waxaa sidoo kale la murugooday 7 saaxiib ee muruqmaal ee boqoradda iyo boqortooyadaba la saaxiibka ah maadaama ay ahayd qof gaaban uma suuro gelin inay si degdega ku gaadho godka ay degan tahay dayaxa ayaana soo baxayey waxay ka warwarsan tahay in madaxdiin wixii ay kula ballantay uu samayn waayo xadhiga ay ku tidhi soo jiid uu jiidi waayo si ay uga jabto sunta balse dayaxa ayaa mar qura si lama filaana u soo baxay waxay noqotay caddo 15aada madaxdiinna maba dhayalsan wixii ay kula ballantay hela waxau yimi xadhigii lagula ballamay inuu soo jeedo balse wuu gaadhi kari waayey maadaama meel sare u saarnaa kor iyo hoosba wuu u booday waxau yidhi waa maxay waxa tani maaniga ayaa sidaa u gaabnaa mise xadhiga ayaa weligiiba meel sare saarnaa gacanta ayuu la gaadhi waayey hela ayaa warwartay waxay aragtay xadhigii oo halkii yaalla hela ayaa soo gashay waxayna aragtay xadhigii oo weli halkii saaran iyo madaxdiin oo aan weli gaadhin waxay ku tidhi doqon iyo doqon ku keenay wadiga ay halleeyey sow kulamaan ballamin hadda waa inaan sida tan sii ahaada tan iyo inta laga gaadhaya 15aadka bisha dambe ee uu dayaxu soo baxayo sowtaan kugu yidhi waxa tan qabo waxay isku dayday in iyadu ay gacanteeda wax kaga qabato labadooduna xataa kor iyo hoosba way u boodeen midkoodna ma gaadhin waxayna ku qasbantay inay nolosha noocana ku sii jirto tan iyo inta dayaxu ka soo baxaya 15 bisha dambe waa abaalka dadka xun abaalkeeda qof kastoo xumaha iyo dhibaataynta dadka ka sheekeeya kama dheefa wanaaggu waxuu ku jira qalbiga wanaagsan oo keliya sidaynu sheekooyin hore ku soo baranay intii 15aadka bisha dambe ka gaadhayso helan ay ahaanayso qof gaaban oo nolosha curyaan ku ah intaanu 7aadka soo socda ku kulmayna sheekada tan ku xigta iyo halkay ku dambaysa hela intaanu 7aadka soo socda mar kale ku kulmayno sheekada tan ku xigta iyo halka ku dambeeya dagaalka boqoradda iyo qumayada hela waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo tan iyo kulantideena dambe
wakhtigu كنت wanaagsan markale caruuray kuna soo